taliyaha ciidanka cirka ee xoogga dalka Soomaaliyeed duuliye sareeya gaas Maxamuud Sheekh Cali ayaa u hambalyeeyay ciidanka cirka oo u dabaaldegayo sanad guurada 66 ee aasaaskooda. Taliyaha ciidanka cirka ayaa waxa uu ka hadlay taariikhda iyo marxaladaha kala duwan oo soo maray ciidanka cirka Soomaaliyeed. maanta oo bisha ku beegan tahay 15 bisha labaad ama February waxaan xusaynaa sanad guuradii 66 ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka cirka Soomaaliyeed. ciidanka cirka Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 15 February ama bisha labaad ee sanadkii 60. waxaa lagu aasaasay saraakiil aan badnayn oo 5 sargaal ah, 5 duuliye iyo nin sargaal kale oo farsamo yaqaan sare ah iyo ciidan markii la isku daro dhamaantiis gaaraya 200 oo haystay 6 ama 8 diyaaradood, 6 diyaaradood iyo 2 yar 8 diyaaradood haysta. wuxuu xilka kala wareegay ciidanka cirka dowladda Talyaaniga sanadka waqtigaas asaga ah. maalinta loo aqoonsaday maalinta ciidanka cirka waxay ahayd maalintii saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo alifley dabley duuliyayaal iyo farsamo yaqaan ah ee ayagu kaligood diyaarad ciidanku leeyahay ku duuleen oo ay aadeen gobolada la dhihi jiray mudug mudug iyo majeertiiniya la dhihi jiray oo ah gobolada bari, halkaasoo loo qaadi jiray boostada iyo mushaarka ciidanka booliiska, ciidamada booliiska ama shaqaalaha dowladda halkaas jira bacdamaa wadadu aysan aad u liidato. marka maalintaas waxaa lagu bilaabay kuruugii ama tiimkii u horeeyey oo kaligood baxa oo dhulkaas soo mara loo qaatay. ciidanka cirka sida taariikhda qorayso 54 iyo meelaha markay ahayd dowladda Ingiriiska intayna ka tagin dhulka ayaa waxay samaysay iskuul la yiraahdo sayidka loo bixiyay iskuulka sayidka. kadibna Talyaaniga la wareegay iskuul farsamo markay ka soo baxaan industriyaale dugsiga farsamada ayaa iskuulka la geyn jiray. haddana iskuulka waxaa laga qaatay saraakiil dad dhalinyaro ah oo qaarna kooda duuliye noqdeen qaarna ay noqdeen farsamo yaqaano. duulihii ugu horeeyay oo ciidanka cirka wax la soo bara Talyaaniga wuxuu ahaa Axmed Sheekh Macow, Allah u naxariisto. wuxuuna ahaa duulihii ugu horeeyay oo dhintay asagoo taliyaha ciidanka cirka ah. xaaskiisii, caruurtiisii iyo asaga iyo ninkii farsamo yaqaankii la socday iyo duulihii labaad markay ka kaceen Berbera u dambeysay cadar ay u socdeen baddaasayna ku dhaceen loo malayna laakiin raq iyo ruuxba lama arag. ciidanka cirka 60 markuu xorriyadda qaadanay xeradaan Afasyooni ama ciidanka cirka ayuu deganaa oo dowladda Talyaaniga kala wareegay. korneelka u dambeeyay Talyaaniga oo xilka ku wareejiyay Axmed Sheekh Macow waxaa la dhihi jiray Colonello Rosati bilowtu ahaa xafiiskan hadda fadhiyay asaga. Axmed Sheekh Macow waa kala wareegay. marka Talyaaniga wuxuu ka laga laabtay ciidanka oo kulligiis wareejiyay sida taariikhda qorayso 30 Juun 1960 ayuu Talyaaniga xilka oo dhan iska wareejiyay, diyaaradihii wareejiyay, xafiisyadii wareejiyay, wuxuu dhan ku wareejiyay. ciidanka cirka jitaabooyin barabo soo maray 62 markay abaarta dhacday abaarta reed ku dhacday dalka diyaaradihii u daadinayay dadka abaarta gaartay oo DC-3 ahaa waxaa lahaa ciidanka cirka waxaana waday duuliyayaal Soomaaliya oo ina cid la wehelin. 63 inay hadaan u malaynaa mar shir lagu qabanayay Congo oo heshiis laga sameeyay wasiir ku xigeenkii arrimaha dibadda Allah u naxariistay Maxamed Cali Dacar waxaa qaaday duuliyayaal Soomaaliya iyo farsamo yaqaano Soomaaliya ayagaa geeyay meeshii shirka Afrika uu ka dhacayay
وشركة اللي قبناي وحنو ملايين يا واحد ديارة وطة وصو أيجو ديارة الدوليالك وحكدري صومالي إثيوبيا أيها كدري وشركة كقيم قلي مش أغسطين هي تكون سجال بقول يلي حدك معنا جولاي الحرية قادرنا أغسطنا أيها تجي بشاس شرف بيوهد إذا كعركة صومالية كرو وذا الصومالية وسنا أجنبي كجرين إنه هالكا تجان إذا ودنا كان درس كان إثيوبيا كل يسجال بقول يلا ما تبيد يلا أساس أنا جنا اللحظة كبار الله أساس ما لنتاس الله بدنا ذكريه وحافر كذا بدوه والديارات وطة وهالكات أيجا كجري إذا كقيمة بدو وكقات أبار كستور دي جرتي اللي بعد كستور نعده سيد الدجا أبارت الدبر روكالي وتضباطني أفرت تضباطني الشمس إذا كعركة ماشي وصل الرئيس وحوق جاري سنة كي كنت سجال بقول تضباطني الشمس تضباطني الشمس وحوها إذا بوحة ديارة هيسا وبكيسة قلب كيسة إذا كيسة سراكيش كيسة جنيرة فرصة يقانا دولياشا معلمين دولياشا معلمين سكول كيسة توبرك وحاصل إليه بوحة أساها تمركي دقالكي لقالي 7 وحي كدب بي هوس بو سعودي waxaad ka dibna waxaa ku dhacay dhibaatooyin badan asaha ciidamadii kale waa ka soo kabteen laakiin annaga wali kama soo kabanin waayo ciidanka cirka in la dhiso ma sahlana waxaa la yidhaha ama buur ahaw ama buur ku tiirsanaw ciidanka cirka biirna kuma tiirsana buurna ma haro dhaqaale asaga uu leeyahay wax kuma samaysan kara hase ahaatee waxuu hayaa niyadii iyo habkii wax lagu dhisi lahaa aqoonti saraakiil xigeenno diyaar u ah oo aqoonti haya xagga haddaad tiraa diyaaradaha raadarada raadiyaasha saadaasha hawada air traffic control intaba waa jiraan duuliyaalna waa joogaan farsamo yaqaanana waa joogaan air traffic controlna waa joogaan waxyaalo badan ba uu leeyahay laakiin wali waxbaa dhiman dowladuna dadaalku ma yara intaas dadaalkii waa wadaa asaatee waxay ku xiran tahay dhaqaalaha marka saraakiil xigeenada alifleyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda meel kasta ay joogaan waxaan ugu hambalyaynayaa sanad guurada 66 ee ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka cirka Soomaaliyeed sanadkan sanadkiisa kale Allah nagu gaarsiiyo bash barwaaqo